من صدح هي توشر ومدى ليس ومدى دارسة سومالي لأنواع صدرية أفرتشر ديك يدى عام بوي بحيسن رد إيام مالبوك بحي حيدينا ما معقول باينا إنه برنامي حاول شغل ماري والبا دولة باي نودسان وين مجنادوك تاير معي marka laga bilaabo sharciyada iyo taariikhdeena shaqo fariido soo soo naga ismaamuleeyay maanta aan idin sheegayo waxa taagan dalka inta le oo inta soo colaada oo ka qayb qaatay xisbiga wadani oo aanay mid tulaaba ahayn ayaynu maanta nahay dalka qura ee dimuqraadiyadu bareeray ee doorasho qabanaya aanu cid bariyeen ee isagu isku filaaday miyaan dawlad isra ay gurku gaadhay miyaan xoog shacabkeena ahayn ninka taatiga ee wali ay balaay kala u muuqataa siyaasaddaasi matu dalka lagu sii daayaa maanta waxay noo joogtaa waxaan maraynaa aan qayb iskoos wada aan taagana laba inoo joogtaa inaynu wadada wado ee dib u socodka dib u raacno xamar u bariyo tagno iyo inaynu qarannimadeena oo caalamkooda maanta Soomaaliland og yahay halkay tahay aynu maanta hirgelayno oo aynaan ka daalin tusaale yar baan siinaya saddex safar baan idin sheegaya kan geli koonaakan diyaar bay u ahayd habeenka inay nala gasho iftiraaf xidhiidhka xamar u geysoo dagaal bay ku qaaday adduunka oo dhan bay ka dacwoysay Kenya ku xigtay Uhuru Kenyatta iftiraaf buuxa ayuu diyaar loo noqday oo miiska loo fadhiisanay adduunka oo dhan bay xamar ku qaylisay cid walba oo yarato carabo oo masar ka mid ah taageerato xilliga loo gooyay Kenya Mareykanka inuu heshiis soo galay safarkii aanu tagnay waxa ahayd inuu berbera ciidankiisu yimaado oo la toos ciidan la sameeyo ciidanka Soomaaliland baarlamaanka Mareykanka ayaa baasgareeyay labada aqalba baasgareeyay article 25 way haddii dawladda dambe soo baxday uu horyaalo sharcigaasi oo dawladda kama diidi karto waayo waxa soo gudbiyay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka maalintii ay berbera yimaadeen ciidamada bilowgoodii yooftigii horeeyay ayaa cadawga Soomaaliland oo dhan oo uu ka qayb yahay gudoomiyaha ay wadan u doorteen baarlamaanka wakiilada Soomaaliland oo qaybtooda way ka qaatay ayaa waxa lagu soo qaaday weerar ilaa maanta halmadi socoto